أنا أخري بيان كصوب حي شر أي بيش وصدع الشبه وفردي وأرمها حرين تا قبل كصال يعين يسناق لوك SSC لقى وذا هذا لي وحنا ودقن يا سيدان وجد باغ بيلوين تا آذان أحمد qodobkiisa koowaad ciidanka iyo qalabka dagaalka ee beelweynta aadan axmed oo ku kala sugan buuhoodle iyo jiidda hore ee gobolka sool waxay taladiisu ka goodaa hoggaanka dhaqanka uu hogaaminayo xurmadle garaad cabdilaahi axmed cabdi cid kale oo sheegan kartaa ma jirto qodobka labaad wuxuu ciidanku si mug leh uga qayb qaatay xoreynta gobolada SSC Khaatumo oo uu ku soo duulay maamulka dhigicabka ee Somaliland ee Muuse Biixi hogaaminayo sidoo kale wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato fayska labaad ee la iskaga kicinayo ciidanka Somaliland qodobka saddexaad nabad ku wada noolaanshaha beelaha jaarka beelweynta aadan axmed dagaalku lama jirto beelaha jaarka ay yihiin waxayna ugu baaqayaan inay dhinacooda nabadgelyada ilaaliyaan qodobka afraad oo ah aayaka talinta iyo masiirka SSC Khaatumo beeshu ma aqbali doonto go'aano aanay qayb ka ahayn oo ka mid ah aayaka talinta iyo masiirka reer SSC qodobka shanaad mahadnaq waxaan u mahadnaqaynaa iyo bogaadin baan u jeedinaynaa golaha 3 ah ee SSC Khaatumo oo ilaa hadda sidii loo baahnaa shaqadii u haya sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada jamaahiirta reer SSC Khaatumo waxaan iyana u mahadnaqaynaa mahadnaq iyo bogaadinba u direynaa siyaasadda madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka Puntland ee gaarsiisan ilaa ay ku dhawaaqeen haddii dhulbahanta aayaka talin SSC aayaka talin gaar ay la timaado in loo furi doono dastuurka Puntland oo awal ku cadeyd Puntland waxay ka kooban tahay 5 gobol iyo degmada Buuhoodle in loo furi doono ilaa heerka gaarsiiyay baanu taageeranaa sidoo kale waxaan mahadnaq iyo bogaadin u direynaa walaalaha iyaga hiil harti oo naf iyo maalba u soo horay halganka lagula jiro dhigicabka Muuse Biixi iyo ciidanka uu soo qalday sidoo kale waxaanu mahadnaq iyo bogaadin u direynaa dhammaan shacabka iyo shakhsiyaadka isbarbar taagay halganka reer SSC Khaatumo SSC Khaatumo qodobka lixaad waa tala soo jeedin waxaan ku tala bixinaynaa in la kala sooco siyaasadda iyo halganka oo haddii laga fursan waayo la dhiso 9 xubnood oo ku meel gaar ah oo dib loo dhigo wixii siyaasadda ee khilaaf ku keeni kara halganka sidoo kale waxaan ku tala bixinaynaa in aan lagu riyoonin in wada hadal la yeesho Somaliland inta ciidanka Somaliland ku sugan yahay dhulka SSC Khaatumo sidoo kale waxaanu ka soo horjeednaa siyaasad kasta oo uu wado oo siyaasadda SSC ka soo horjeeda oo ay wadaan madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Djibouti gabagabo waxaanu mar walba diyaar u nahay in aanu wada tashi ka yeelanno xaalad kasta iyo duruuf kasta oo halgankaasi wajiga keenaba inaanu mar walba shir ka yeelanno ayaan diyaar u nahay